naxariistu waa shayga koowaad ee qofka loogu soo hirto muhiimadeena koowaadna waxa weeyaan markaynu helno hooyo caafimaad qabta ayaan helaynaa haddii ilaahay yidhaahdo bulsho caafimaad qabta marka aynu ku dadaalno in aynu hooyooyinkeen caafimaadkeeda aanu horumarino 4 sano kadib maalintay bilaabayeen ee aanu qoraynay iyo maanta 4 sanadood baa u dhaxeeya munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa qalinjabinta ardayda baratay kulliyadda umulisinimada ee jaamacadda Adna Aadan University ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabada ayaa ardayda waxaa lagu guddoonsiiyay shahaadooyin isla markaasina waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan iyo maamulka sare ee jaamacadda Adna Aadan. Halkaasina waxaa ka hadlay maamulka jaamacadda Adna Aadan ardayda qalin jabinaysay iyo waliba waalidiintooda. waa xaflad bilan oo boqran cidii soo qaban qaabisay waynu mahad celinaynaa ardaydii ka qayb qaadatay waynu mahad celinaynaa waxa kale inuu hambalyo ah ardayda aynu sii sagooteen 4 sano kadib maalintay bilaabayeen ee aanu qoraynay iyo maanta 4 sanadood baa u dhaxeeya ardaydaasi jid dheer bay soo mareen dadaal badan bay soo sameeyeen dadaalka ay iyaguna soo sameeyeen way ku mahadsan yihiin dadaalka waxa la dadaalay waalidkoodii baa la dadaalay waxaan hadalkayga uga dhigayaa hadal guud inaad faraxsantiin baan ogahay inaad aad u faraxsantiin baan ogahay inaad muddo badan wax soo baranaysaan baan ogahay caawa annaguna waad la farxaynaa guul baan idiin rajaynaynaa waan idiin ducaynaynaa gabadhaanu asxaab nahay oo gabdhii xagga ay ugu soo dhaweeyay baan maalin su'aal weydiiyay waxaan idhi waqtigee bay kuugu darnay adduunkan intaad joogtay ama London ba waxay tiri anigoo 9 bilood ku jira oo uur leh oo foosheedii caawa tahay ayaan isiri meel alaab ka doono ka bacdi gaari bay soo kaxaysatay dabadeedna meesha wadooyin waaweyn bay leedahay oo highway gaarigii bay soo kaxaysay wadadii highway-ga iyadoo saaran baa fooshii nabar ku qabatay ka bacdina haddii ay xawaaraha dhinto gaariga dambaa ku dhufanaya haddii ay xoog u socoto ka hore ku dhufanaysaa meel baarkin oo loo baydhaa ma jirto ka bacdi markiiba go'aan bay gaadhay inay dhakhtarka ugu dhow tagto maasha Allah markii ugu horeysay baa dhakhtarkii ugu dhawaabay tagtay dadkii baa soo dhaweeyay way soo rogeen dabeedna waxay yiraahdeen yaa kula socday waxay tiri keligay baan ahaa gaarigan aan awooday waxa la khalad baad samaysay markiiba qolka la geliyay way umushay markay umushay ayay wacday odageedii markaasay tiri dee waan umulay dhakhtarkaasaan joogaaye iigu kaalay marka maalintaasay iigu darnayd bay tiri marka idinkana waxaan idinku baraarujinayaa qofka hooyada inta badan lacag ma haysato markay idin timaado inaa aad u soo dhaweysaan marka ugu horeysa naxariistu waa shayga koowaad ee qofka loogu soo hirto muhiimadeena koowaadna waxa weeyaan markaynu helno hooyo caafimaad qabta ayaan helaynaa haddii ilaahay yidhaahdo bulsho caafimaad qabta marka aynu ku dadaalno in aynu hooyooyinkeen caafimaadkeeda aanu horumarino horta waan hambalyaynayaa waxaanan ku hambalyaynayaa sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee imtixaankii uga soo gudbeen ee uga soo baxeen hablahaasi oskigiisa ay uga soo baxeen imtixaanadii kale sida uga soo baxeen sida quruxda badan leh u soo baaseen ayaa waxaan idin leeyahay hambaliyo 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 taana in sharaf badan ay macallin Ifraax iyo hooyadeena qaaliga ah ee Soomaaliland ilaahay cimriga iyo aqligaba ha u barakeeye Adna Aadan ay kamid tahay aynu leenahay caafimaadka Allah ku siyaadiyo cimrigaagana Allah dheereeyo geedkaynu harsanayna maantana qofkii inoo sababay inoo suura geliyay astaantii naxariista umuliso yadiga qof kasto ifka jooga
aamintuu dhalanayay qof kastoo ifka jooga aamintuu dhalanayay soo dhowaynta ilmaha iridii jiritaanka ahaa umulisoy u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas